فرحة وين نوعنا هل كان كسر جديدنا وربحنتي وحقبتكي وزارة عافماتك سنة كي 2000 لو كوني أفري طبنك تاسو أهيد بلنقاد وزارة بلنقادي أنا بلنقادي بالشدة كوميونتي بنتلان إن يفرين يسون هذه كده عافماتك اللي باهية وزارة عافماتك وحي بلنقادي إلا جوكتيو إن حوق ugu badan la saaro qaabka deegaameynta caafimaadka oo loo isticmaalayo caafimaad degmooyin taasoo saldhig u ah dib u qaabeynta caafimaadka asaasiga ah ee bulshadu ay u baahan tahay in la joogteeyo helitaanka daawooyin tayo leh talaalo agabka kale ee looga baahan yahay xarumaha caafimaadka oo dhan in caafimaadka degmooyinka aan wadada dheer ee laamiga ah saarnayn lagu faafiyo adeegga caafimaadka oo dhammaystiran halkaas oo ay ka dhacaan tirada ugu badan ee dhimashada ugu badan xagga dhalaanka in dib u xoojin lagu sameeyo waxay ballan qaaday wasaaradda caafimaadku in dib u xoojin lagu sameeyo daawooyinka lana helo daawooyin tayo leh oo la baaray lana mariyay shay baaro iyadoo lagu xiriirinayo xanuunada xilliga iyadoo la marinayo shay baaradaas si loo helo daawo tayaysan loona saaro dad u leh khibrad u leh in dib u xoojin lagu in la xoojiyo ka qayb qaadashada bulshada dhinacyada maalgelinta iyo horumarinta adeegyada caafimaadka in la waxay ballan qaaday in la tayeeyo horumarinta caafimaadka asaasiga ah iyadoo loo marayo 8 qodob ee caalamiga ah bulshada wasaaraddan ay u adeegayso oo tiradoodu ay dhan tahay 3 milyan iyo 200 iyo 83 kun oo ayagana ah barakacayaal iyo in ka badan 15 kun oo qaxooti Soomaaliyeed soo barakacay waxay ballan qaadeen adeegaas ay fuliso oo ay iyadoo ay ka howlgalaan 316 xarumood oo ay ka socoto howlaha wasaaradda caafimaadka waxa kale oo ka shaqeeya 2047 qof oo ah shaqaale ehel u ah xirfadleyda caafimaadka waqtiga dartiis waxaan rabnaa in aan shaxdii idin tusno oo lagu soo jeediyo presentationka marka waxaan ku wareejinayaa agaasimaha guud si uu u faahfaahiyo waxaad kaloo haysataan iyadoo qoraal ah galalkiina ku jirta waxqabadkii wasaaradda iyo guulaha aan gaarnay waxaana lagu muujin doonaa guulaheena shaxda uu soo jeedin doono agaasimaha guud ee wasaaradda Dr. Cabdirasaaq Xarsi Xasan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدحوينها دولة بنتلاند golaha wasiirada halka fadhiya dhammaan warbaahinta iyo mas'uuliyiinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan warbixinteenu waxay noqon doontaa 3 qaybood qaybta koowaad insha Allah waxa weeye buugaas aanu qaybinay oo ah waxqabadka wasaaradda ee sanadka 2014 waxaan rajaynayaa inuu ku wada jiro galalka wixii warbixin halka ka heli doontaan qodobka labaad warbixinteenu waxay noqon doontaa retreatkii la sameeyay bishii 3aad 2014 shirkii uu jeergareeyay madaxweynaha qodobadii la balan qaaday baseline-kii la sameeyay iyo maxaa ka qabsoomay wixii aan qabsoomisay maxay u qabsoo waayeen qodobkaasi waa qodobka koowaad ka saddexaad wuxuu noqon doonaa waxyaalaha dheeraadka ka ah oo wasaaraddu qabatay soo birinaaday lahayd markaynu fiirino retreatkii 2014 bishii 3aad iyadoo runtii aad loo soo koobay 2 qodob ayaa xoog la saaray qodobka koowaad wuxuu ahaa baahinta adeegga caafimaadka daryeelka caafimaadka asaasiga in la baahiyo oo meelaha laabi ka baxsan iyo degmooyinka lagu baahiyo baseline-kii aanu haysanay madaxweyne wuxuu ahaa 10% ayaa markaa ku qiyaasnay sababtoo ah barnaamijkaasi waxa uu kaliya uu ka socday gobolka Karkaar markaan fiirino waxqabadkii sanadkan 2014 waxaanu aaminsanahay ama qiyaasnay in lagu kordhiyay 10% taasoo ah inaan hadda uu marayo 60%
taasna waxaa sababay adeegga daryeelka caafimaadka asaasiga ah oo lagu siyaadiyey oo la gaarsiiyey dhammaan gobollada mudug iyo nugaal markaynu fiirino shaxda buugga ku taalla waxaa adeeggaas ku kooban yahay in heer tuulo heer degmo ilaa muxuu ahaa la gaarsiiyo meel kasta oo deegaanka ku nool yahay waxaa qabsoomi waayey oo qorshuu ahaa sanadkii 2014 in gobollada bari iyo gardafuul iyo sanaag bari in gobolka sanaag arrintaas in la gaarsiiyo adeeggaasi laakiin adeeggaas oo ah adeeg ka duwan muxuu ahaa kii hore u socday oo ah adeegga caafimaadka daryeelka caafimaadka asaasiga oo dhammaystiran taasna waxaa sabab u ahaa mudan madaxweyne inay dhicweydo dhaqaalihii loogu talagalay iyo hay-adihii caalamiga nooga taageerayay arrintaasi ay noogu suroobi weyday laakiin waxaa halkan u bishaaraynayaa bulshada reer puntland in hawshii ay soo dhammaatay oo gobolka sanaag iyo gobolka bari iyo gardafuul isa saaran oo markii barbaroska diyaarinayay hal gobol isku ahaa ay dhammaatay aan rajeynaa haddii ilaahay bisha January inay bilaabato arrintaasi qodobka labaad oo ahaa retreatka markay ugu noqono oo wuxuu ahaa hirgelinta sharciga caafimaadka tayeynta daawada arrintaasi meel fiican ayuu marayaa baseline-kan haysanay wuxuu ahaa 5% ayuu ahaa sababta waxaa jira daraafta sharciga caafimaadka haddeer markaynu fiirino meesha uu marayo weli waa hooseeya waxaan oran karnaa 20% ayuu marayaa waxyaalaha ka qabsoomayna waxaa ka mid ah in la dhisay in la dhammaystiray sharciga caafimaadka ama law level 6 loo yaqaano la tarjumay oo la dhammaystiray in la sameeyay gudiyadii ka shaqeyn lahaa hirgelinta sharcigan caafimaadka oo ah sharciga daaweynta waxa la ururada dhaqaatiirta waxa sidoo kale shirarada laga qabtay daawooyinka kaliya ma aha waxa runtii la rabay in la sameeyo food and drug quality control waxa loo yaqaan oo ah cuntada iyo daawada tayadooda in la ilaaliyo arrintaasi shirar ayaa wasaaraddu ka qabatay oo la kaashanaysa wasaaradaha kale sida beeraha xanaanada xoolaha iyo arrimaha gudaha iyo wasaaradaha la mid ah marka waxaan oran karnaa sababta arrintaasi boqolkii ay u hirgeli weydo waxaa ka mid ah mudane madaxweyne waxaa runtii caqabad qabsatay fulinta muxuu ahaa sharciga ama law enforcement in la taageero sharciga in la fuliyo arrintaas u baahan runtii ayadana in la xoojiyo oo sharci fulinta ayaa u baahan in aad loo xoojiyo intaasi waa qodobadii iyo retreatka ahaa oo labadaas qodob mid walba percentage-kii aan ka gaarnay waxaan ku xijinayaa haddii lahaydno presentation kooban oo waxyaalaha retreatkii ka dheeraadka ahaa oo wasaaraddu ay sanadkan ay ku tallaabsatay marka aan dowladda Puntland waxay u adeegtaa bulshada sida wasiirku sheegay Puntland oo dhan waxayna adeegga caafimaadkuna wuxuu ka socdaa 316 xarumood waxaa kaloo raba halka inaan ka sheego 316 xarumood intooda badan oo ah Prime Health Care levelka inay Puntland sanadkan ka hirgashay markii ugu horeysay waxaa loo yaqaan free Prime Health Care Service oo ah adeegga caafimaadka oo primary-ga ah oo ah heerka MCH-da ama xanaanada hooyada dhallaanka inuu lacag la'aan yahay arrintaas cid ka soo tijaabin kartaa dhammaan adeegga caafimaadka ee primary health care-ka lacag la'aan ayaa laga dhigay sidoo kale adeegga caafimaadka hooyada uurka leh iyo xilliga dhalmada ku jirta dhammaan cusbitaalada Puntland waxaa laga dhigay lacag la'aan sanadkan oo tii ugu dambeysay hadda sanadkan bishii 17 November la furay oo xaflad weyn loo qabtay barnaamijka Karma la oran jiray oo hoos loogu dhigay muxuu ahaa hooyada dhimashada hooyada xilliga umraaca ku jirta marka arrintaas waa arrin farxad leh inay noo soo siyaaday markaynu sidoo kale waxaa jira xarumo aad u tiro badan oo ah xarumaha shaybaarada ama heer gobol ha ahaadeen ama heer degmo ha ahaadeen oo kala duwan oo wasaaraddu maamusho marka u nimaadno waxa la yiraahdo qaabka maamulka caafimaadka waxa uu ka kooban yahay xarunta dhexe heer gobol heer degmo ilaa tuulo marka sidaas la leeyahay wasaaraddu waxay xarumo ku leedahay oo xafiisyo ku leedahay sanadkan qaarkood hirgelisay ay dhammaan xafiisyada gobolada Puntland sidoo kale waxa ay wasaaraddu si joogto ah xogta uga heshaa laba xogood oo la yiraahdo xogta subaxlaha ah oo 45 xarumood oo ku yaala wadanka ay soo report gareeyaan soo holba xaaladda caafimaadka meesha ay marayso iyo xarumaha loo yaqaano health information system oo ah warbixinta billaha ah oo bil walba sanadkaas bishaas wax qabadka iyo xaaladda caafimaad gobolba laga soo report gareeyo marka fiirino wadankeena Puntland ama dowladda Puntland xadida cudurrada ugu badan wadankeena sanadkan waxaan dib u fiirinay daatada waxaana ugu badnaaday mudan madaxweyne caabuqa ku dhaca neef mareenka gaar ahaan caruurta 5 sano ka yar oo caabuqa neef mareenka shuban biyoodka oo runtii halkan maadaama maanta loo dhan yahay iyadana problem jira ah
oo badanaana sabab u ah waxa loo yaqaan muxuu biyaha aan nadiifsanayn oo runtii lagu qiyaaso 25% boqolkiiba 75 kale oo aan aaminsanahay inay biyo nadiif ah aysan runtii helin cudurrada ugu badan oo impact ay keento waxa weeye caafimaad darrada gaar ahaan xagga shubanbiyoodka waddanka aad ugu badan hadda cudurrada ugu badan oo runtii laga hortagana waxaa ka mid ah jadeecada iyo caabuqa muxuu kaadi mareenka iyo duumada qaaxada iyo sanadkan hadda 2014 waxaynu arkaynaa waxa aad u sareeya waxa loo yaqaan muxuu shilalka baabuurta aynu ognahay in arki doona tirada dad badan ayna ku dhinteen arrintaasna u baahan siyaasad laga yeesho in muxuu ahaa sidii loo yareyn lahaa shilalka baabuurta oo ayaguna impact caafimaad inay ku keenayso oo dhaawacyada tirada badan iyo muxuu dhimashada keenta markaynu u nimaado xirfadlayaasha caafimaadka ee Puntland ka howlgala iyo runtii waxa ay gaarayaan ilaa 2440 next saxna waxa meelaha guulaha la gaaray sanadka waxa kamid ah madaxweyne in la gaaro deegaamada muxuu laamay ka baxsan gaar ahaan loo sameeyo waxa la yiraahdo travel system muxuu bukaanka laga soo qaaday baadiyaha magaalooyinka lagu soo gaarsiinayo waxaana lagu gaarana waxa kamid ah in ambalaasyo loo raadsho sanadka waxa noo hirgashay in 3 ambalaas helo oo ambalaasyada hardtopka lana gaarsiiyay degmooyinka laamay ka baxsan gaar ahaan Bargal Xaafuun iyo Badarbayla yes صح waxyaalaha tababarada kale waxa ka faa'iideystay shaqaale caafimaad oo gaaraya 5,670 kuwaas isku jira dhakhaatiir nurse umulisooyin shaybaaristayaal iyo dhammaan xirfadlayaasha kala duwan ee caafimaadka waxaanu aragnaa tirada waxa soo qaadanay dhammaan waa tababarada kala duwan ee sanadkan wasaaraddu ay u qabatay xirfadlayaasha caafimaadka xataa waxa ku jira private sector-ka oo ayagana tababaro loo sameeyay gaar ahaan qaybta maamulka daawooyinka iyo farmasiyaasha oo qayb ka ah qaybta tayinta daawada ka sax maamul baahinta markaa u nimaadno oo sida wasaaradda arrimaha gudaha sheegeen waxaa 3 degmo ayaa beelad u qaadanay in maamulka caafimaadka awoodiisa la baahiyo si muxuu ahaa awoodaha maamulka ay heer degmo looga soo dhiso arrintaas tijaabi ahayd waa lagu guuleystay warbixinta waxaan rajaynaynaa bishan dhamaadka inaan soo saarno next guulaha ugu waaweyn oo la gaaray markaynu fiirino daatooyinka caafimaadka la gaaray sax waxaa dhammaan soo sheegay xarumahaas oo dhan loo wada qaybiyey agabka caafimaadka agabka dumarka lagu dhaliyo kan hygiene sanitation loo yaqaan hygiene kitka oo isku badan tirada runtii aad u badan ilaa 6 qaarkood gaarayso iyo dhammaan xarumaha oo hela daawo joogto ah daawooyinkaas oo runtii hay'adaha caalamiga naga taageeraan iyo sanadkan ay bilaabatay markii ugu horeysay in jaaliyadaha dibadda ay daawooyin runtii waddanka ugu deeqeen la gaarsiiyo xarumaha ay soo sheegay next marka fiirino waxyaalaha aadka loo baahiyay sanadkan waxaa ka mid ah in la gaaray reer guraaga 3 barnaamij oo kala duwan ayaa reer guraaga loo sameeyay sanadkan markii ugu horeysay ayaa waxaa loo sameeyay tallaal carruurta ka yar 10 sano ee miyiga ku nool waxaa sidoo kale la sameeyay barnaamij cusub oo loogu magac daray caafimaadka reer guraaga oo ah in remiga la gaarsiiyay mobile teams wareega oo baadiyaha wareega iyo kii saddexaad oo ahaa in integration wasaaradda xanaanada xoolaha anagu sameynay in one health la yiraahdo talaalayaal markay kaambeynka xooluhu tagayaan sidoo kale lagu daro ay sameeyaan waa barnaamij cusub oo runtii soo siyaaday sanadkan waxaa aad loogu guuleystay in technology-ga aad loo isticmaalo oo la sameeyo waxa loo yaqaan solar system si korontada loo yareeyo in 25 ka mid ah xarumaha caafimaadka oo MCJ-da ah iyo 3 cusbitaal dhammaantood lagu rakibo solar system-ka arrintaasi oo runtii 100% hoos u dhigtay oo zero soo saartay kharashkii tiro badan oo ku bixi jiray korontada gaarna cusbitaalada waaweyn arrintaas arrintii caafimaadka reer guraaga remiga kaliya ayaa sanadkan waxaa ka faa'iideystay 24,000 oo daaweyn iyo talaal isku jirta in meelaha miyiga ka baxsan oo adeeg caafimaad aan horey u heli jirin next arrintan waxaa la yiraahdaa community midwives oo waxa weeye waa in meelaha tuulooyinka laami ka baxsan ama degmooyinkaba loo helo waxa la yiraahdo in la tababaro umulisooyin si loo badbaasho hooyooyinka waxaa wasaaraddu qorshaysay sanadkan in 100 gabdhood la soo saaro si ay loo shaqaaleysiiyo meelaha degmooyinka iyo tuulooyinka oo umulisooyin arrintaasi 100 ugu horeysay ayaa hadda sanadka lagu guuleystay oo dhammaatay next dhismayaasha markaa u nimaadno
waxay ku kala duwan yihiin dhismayaal cusbitaallada iyo xarumaha caafimaadka dhismaha ugu hooseeya oo kale madaxweynuhu furayo waxa weeye cusbitaalka Garowe oo lagu soo siyaadiyay qaybta dhalmada waxaa sidoo kale xarumahaas kuwa lamida laga furay magaalada Boosaaso iyo waxaa dib loo kiciyay deegaamada Tawfiiq Garacad iyo Bacaalweyn saddexaas degmada sidoo kale xarumahoodii health centerska ayaa dib loo kiciyay oo la howlgeliyay sanadkan markaan nafaqeynta ka hadlayno runtii aydan barnaamij aad u ballaaran ah waxaa jira sanadkan ka faa'iideystay dad gaaraya caruurta severe malnutrition oo ilmo nafaqo ku dhacday laakiin cusbitaal la saxiyay in gaaraysa 550 caruura taas oo dad la badbaadiyay oo heerka ugu daran marayay nafaqo darrada marka la isku dardaro dhammaan dadka caruurta nafaqo darrada ka faa'iideystay waxay gaarayaan ilaa 136,000 iyo in ka badan waxaan ku soo koobayaa sidoo kale la barnaamij ayaa ka dambeeya oo barnaamijka waxa la yiraahdo xakameynta qaaxada AJP waxa uu tagay doonaa Dr. Cabdiraxmaan qaaxada marka la daaweynayo 10 xarumood ayaa sanadkan daaweyntu ka socota waxaan ka faa'iideystay dad gaaray ilaa 1300 oo bukaan ee lagu daaweeyay barnaamijka duumada oo aydan kaneecada ah waxaa markii ugu horeysay sanadkan Puntland laga sameeyay in la daaweeyo lana buufiyo magaalooyinka waaweyn ayagoo la isticmaalayo qalab casri ah oo sanadkan markii ugu horeysay la sameeyay marka uu soo noqdo waxa la kormeerada wasaaraddu waxay sameysay kormeero gaaraya dhammaan xarumaha caafimaadka ee ku yaala waddanka oo dhan ayaa la kormeeray waxay ka qashay shirar caalami ah oo lagu yabeeyay adeega caafimaadka marka aan imaado cusbitaalada waaweyn waxaa sanadkan la wada gaarsiiyay dhammaan cusbitaalada waaweyn agab caafimaad oo kala duwan oo qaarkood ay casri yihiin runtii qaarna jaaliyadaha dibadda ay keeneen qaarna ay hay'adaha caalamiga sida Islamic Bank ay keeneen intaas ayaa ku soo koobay maanta waqtigu yaraaday waxaan rajaynayaa warbixinta dhammaystiran inay buug ku qoran tahay wixii su'aalaha aad u mahadsantahay